السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان صاحبة الصوماليات ملك سؤال جوجتان يسكت سؤال ضد وريسا حلو ونكسل برنامجكم قضبك الدول iyo ka kooban yahay qodobka koowaad waxa weeye madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo wax allaala iyo wixii ciidan joogay magaalada muqdisho ku daadgureeyay gobolka shabeellaha dhexe khawaarijta argagixisada al-shabaab oo qorsheynaysa in ay qabsadaan degmo ka mid ah magaalada muqdisho halka xasan uu cararay aadan yabaal sidoo kale ciidamo xabashi ah oo aad u tiro badan ayuu xasan sheekh maxamuud dalka soo gelinaya hadda waxaadna ogeydeen bila ka hor inuu lahaa cadawaahal waana Itoobiya qodobadaas iyo wixii raaca ayaan insha Allah taala idinla wadaagi doonaa waxaan ku bilaabaynaa madaxweynaha beenaalaha ah ee xasan sheekh maxamuud shalay wuxuu ka hadlay masaajidka markuu ka hadlay beentii ugu weyneed abid ee qof madaxweynaha sheego ayuu halkaas ka sheegay hortiina ayaa nabiga ka barxaya madaxweyne dal oo hogaamiye ummadeed ah in lagu tilmaamo inuu beenaale yahay kelmad sahlan maaha waliba iyadoo ay tahay xilli ramadaan ah hadde runta oo la sheego waxay ila tahay in aan dambi naga soo gaaray madaxweynuhu shalay wuxuu sheegay oo aan hadda idin tusi doonaa in aysan jirin hal degmo oo muxuu ahay toy ay qabteen madaxweynaadkiisii hore ama hadda oo shabaab dib u qabsaday madaxweynaha tuulooyinka iyo deegaanada kale iyo uma xisaabsan laakiin isagu wuxuu ixtimaaday degmo taas laftirkeeda waxaan rabaa insha Allah taala in ka dabageeyo madaxweynuhu inuu been cad u bareeray laba arrimood bidoodna ay arrinka keeni karto horta bal 12 sekin oo kelmadaas ah ila daawado waxay la tahay inaad aragteen oo daawateen madaxweyne waxaan leeyahay kaadi baa tahay been low baa tahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri المؤمن يزني ويسرق ولكن لا يكذب مؤمنك زنا way ka dhici kartaa tuugana way ka dhici kartaa laakiin been ma sheegi karo sabab baa la jiri wuxuu yiri xabiibkeena sallallahu alayhi wasallam mu'minka inuu zinaysto shahwa ku kalifi kartaa inuu waxadana gaaja ku kalifi kartaa laakiin been inuu sheego wax ku kalifi karaa huma jiraan waliba beenta marka qof shacab oo iska caadi u sheego iyo marka qof imaamkii ummadda ah hogaamiyihii ummadda ah uu sheego way kala duwan tahay madaxweynuhu sida aad daawateen wuxuu yiri hal degmo oo nala ka qabsaday ma jirto waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed anigoo marqaati ka shalaya walaalayaalow marqaati miyaydan ka ahayn in degmada Caalbuur ee gobolka Galguduud ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanku ay gacanta ku dhigeen 2023 shan maalmood inay ku sugnaayeen kadibna ciidanku ay isaga soo baxeen kadib markii si ku talagal ah degmada Ceeldheer iyo Masegawaay dawladdu uga saartay ciidamadii ku sugnaa sidoo kale ciidamo dhanka Dhuusamareeb ka xigay oo meelaha la yiraahdo warar dhuumaray la iyo joogay dawladdu saartay ciidamadii halkaas gaaray ee joogay muxuu ahaatay shanta maalmood hatta saraakiil Mareykan oo la socotay oo ciidanka darab maaragtay la socotay yaani halkaas isaga soo baxeen sidoo kale magaalada Wadxo laba goor ayaa la qabtay iyadana waa laga baxay waxa la yiri nin geeda tiriyay ee yaqtiga geeda ma tirin Caalbuur hadduu soo madaxweynuhu degmo u aqoon xagee horta degmo ah Caalbuur waxay ka mid tahay afarta degmo ee ugu qadiimsan dalka Soomaaliya waliba labada ugu sii qadiimsan afartaas laftirkooda ayaa waxa weeye laba loo magacaabay labadii ugu horeysay ku jirta waxa la oran karaa marka waa degmada ugu da'da weyn dalka oo dhan waxa weeye marka taas haduusan u aqoon madaxweynuhu degmo xagee degmo u yaqaana arrinkan maxaa ka lifi kara laba عقدة أنه قالوا جناي أو قبو أو محوّايته أو قبو وليبا ضدك مجال داس دجن إني كوكلفتي أو محوّايته قرشها دي بحرينته عن عالبور وجودين ويكوكلف كرتا سيدا كلام حاول كلف كرتا إن وياي نن محشورة أو بين لو
waxa ma ogtaa markaad ku adabti garowdo qof wax markuu la qabsado waxa weeye waxba lama aha laguma qabsanayo laguma fahmayo shacabku ma oga saas inuu isirina way dhici kartaa waxa weeye marka madaxweynaha ummadda beenta loo taagay leh muxuu ahaa degmo aan qabsanay oo dibna la kaga qabsaday ma jirto ummaddu ma rumaysan kartaa wax kale uu sheegay taas intaasna ugu gudbaya waayahay madaxweynuhu waxa laaliyo wixii ciidan uu hayay ee joogay magaalada muqdisho xalay ayuu daadgureeyay waxaana loo qaaday aadan yabaal oo hareeraysan degmada aadan yabaal deegaanadii ku dhawaa ee alkowsar iyo boos hareeri iyo wixii la halmaala shalay argixisada dhammaantood la wareegtay xalay magaalada aadan yabaal waxaa isaga baxay ninka la yiraahdo jeneraal odawaa iyo saraakiishii ku xigtay kadib markii cabsi xooggan timid oo la arkay laba ciidan oo labada dhinac magaalada ka xiga dhanka hiiraan ciidan aad u xoog badan oo ilaa 1000 gaaraya argixisadu maartay ay soo dhigtay dhankan muxuu ahaayay alkowsar iyo xaggeedana ilaa 800 ciidan ayaa lagu arkay taasna waxay keentay in jeneraal odawaa Yuusuf Raage strategical uu siri waad go'doomi kartaa marka uu magaalada xalay isaga saraakiishu ku xigtay isaga bixin waxa lagu reebay askartii uu absidaas awgeed madaxweynaha focuskii ka dhumay markaas wax allaale iyo wixii magaalada muqdisho military joogay wuxuu ku goray shabeellaha dhexe hase yeeshee xogta aan helayno waxay sheegaysaa in waraaba u taag ay tahay magaalada aadan yabaal ee argixisada al-shabaab ay qorsheynayso in ay qabsato degmo ka tirsan magaalada muqdisho gobolka shabeellada hoose ayba ku sugan yihiin guutooyin argixisada ka tirsan oo isu diyaarinaya in ay si gaadma ah 4 degmo oo hareeraha magaalada ku yaala midood ay ku qabsadaan waxa weeye marka xasalow aadan yabaal la qabsaday iyo degmo magaalada muqdisho ku taala la qabsaday tay ku fadeexad weyn waa inaad taas ka fikirtaa waa inaadan muxuu ahaayay hal mar isdaad raacin waa inaadan muxuu ahaayay hal meel kaliya adan focus ka saarin waxa weeye arrinkaas arrin jiro weeye waana wax dhici kara argagixiso haddaan annagu fursad siinayno ama aan doonayn inay horumar gaaraan tabadi ma sheegay intaas waxa dheer xasan maxamuud wuxuu soo wadaa kubanaan Itoobiyaan hadda bila koor waxaad ogeydeen xasan oo leh cadawaa hal waana Itoobiyaankii shalay cadawga ah ayuu xasan soo wadaa feer waxaa soo gaaray ciidamo aad u tiro badan oo Itoobiyaan ilaa 10,000 gaaray sida la sheegay ciidamadaas annagu waxaan isleenahay aadan yabaal raba inuu dejiyo Itoobiyaanku xagga difaaca ku fiican yihiin weerarka kuma wanaagsana marka waxaan isleenahay degmadaas aadan yabaal oo khalkhalka weyn ku jirta ayuu raba inuu dejiyo oo halkaas joogaan ceelbur baad kor 3 sano deganay marka waxa weeye Itoobiyaankaasna dalka ayuu soo gelinayaa oo hadda ayuu u yeertay inkastoo Itoobiya iyo Eritrea ay ka dhex qasan tahay oo laga yaabo mar dhow in halkaas dagaal ka qarxo oo Itoobiya intay gudaha Soomaaliya ku sugnaa karto laftirkeeda aan la saadaalin karin magaalada muqdisho cabsidu meesha ay ka jirto kale waxa weeye garoonka diyaaradaha xasan shalay aad ugu laalaabtay laakiin meelaha laga filanayo in dhibaato ka timaado oo garoonka laga galo waxa kamid ah shirkadda Xasan Maxamuud Cali Sow ee la yiraahdo Sahal shirkadaas waxa loo badinayaa meelaha digniinta laga bixiyay inay ku jirto dadka ayay qaadaan $8 oo baad ay ka qaadaan waxaana lagu eedeeyay dadka inay si fiican u baarin argagixisadu waxay qorsheynaysaa leeyahay inay iska dhigaan dad rakaab ah oo u dhoofaya muxuu ahaayay dibadda marka diyaaradaas yani shirkadaas ay qaado garoonka geliso checkpointiga koobaad markay joogaan ay xabada bilaabaan waxa weeye xasanow hunguri ayaad u dhimanaysaa garka hoostiisa ku dilaysay shirkadda xulo Sahal shaqada ka jooji ama baaritaan adag lagu sameeyo meelaha laga soo gali karo garoonka ay ku ka tahay ciidamo qubaysan inay gudaha ku geliso ayaa suurtagal ah waxa weeye marka laba shil adigoo raadinaya hadii garoonkii ummadoo dhan muxuu ahaayay argagixisay aad geliso isla adigu aad geliso waa dhibaatinteeda leh marka waxaan leeyahay xasan sheekh maxamuud runna ma yaqaan nin muxuu ahaayay ummaddu aamini kartana maaha hogaamiye beenaala ahna waxa weeye kalsooni ummadeed ma helo madaxweynow 72 jir baa tahay beenta iska daayo ummadda runta ku dhaq been cad inaad masaajid bal fiiri inta dambi beydkii ilaahay ka dhex sheegaysa hogaamiye ummadeed baa tahay bil ramadaan weeye
ma xishoonaysid markaasaad leedahay degma layga qabsaday ma jirto ayadoo shacabku og yihiin degmooyin in muxuu ahaytay aad ka baxday waxa weeye insha allahu tacaala wixii soo kordhaan arkaynaa laakiin xaaladdu ma sahlana waxaansan leenahay argagixisada sharteeda ummadeenna allah ka qabto hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu